معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم افتح لنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا بحق داها وياسين. انت أكدب أنا شيخ نصر الدين عبد الرحمن عبد الله الشيخ عثمان إمامك أما خطيبك مساجدك الشيخ عثمان نور برعو waxaan halkan ka soo jeedinayaa sulxiga waxa la yiraahdo heshiiska inuu yahay rukni weyn oo diinta kamid ah hadii ay wax soo kordhaan ama ay colaado qarxaan ama ay dhibaatooyin dhacaan inay culimadu ay ku guntadaan oo ka qayb galaan waxaana arrinkaas aan gaar ahaan ula hadlayaa dhammaan cuqaasha gobolka Togdheer dhammaan salaadiinta gobolka Togdheer dhammaan culimada diinka ayaan arrinkan aad ugu adkeynaya inay ku guntadaan oo sidii loo bixi jiray markay colaad meel ka baxdo inay u baxaan oo ay u gurmadaan dadka aynu walaalaha nahay maanta maqlaysaan dhaawacooda iyo dhimashadoodu anigoo soo jeedinaya rabbi tabaaraka wa tacaala quraankiisa cadiimka sida uu ugu waafajiyay macnaha wax kasta oo dhaca inay kitaabka quraanka kariimka ay ku dhan yihiin iyo ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ilaahay quraankiisa ku yiri wa in daa'ifatani min almu'minina iqtatalu hadii ay istiraan laba kooxood ama laba qabiilo ama laba qolo oo mu'miniin haday istiraan oo gacanta isula tagaan faaslihu baynahuma ba ilaahay yiri waaru gurmadu fidiya oo heshiis dhexdooda ka ridaba ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yiri qof kasta oo mu'mina way khusaysaatani marka heshiiska loo fidiyo fa in baqat ihdahuma ala al-ukhra haday midita kale ku xadgudubto oo heshiiska loo dhigay ka soo xadgudubto faqatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amri Allah walla dagaalama ba ilaahay yiri taa marka ilaahay macna jabisay illa amarka ilaahay ay ku oofinayso taa xadgudubtay macna intiina kala xooga saara illa amarka ilaahay ay ku oofinayso oo sulxigii ay u soo noqonayso oo walaaltinimadii u soo noqonayso oo heshiiskii iyo sukaankii deegaankii wixii ka yaalay ay tixgelinayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay fa in fa'at haday oofiso fa aslihu baynahuma waxa ku wanaajisan oo ku islaaxisan oo ku heshiisiisan bil adli cadaalad idinkoo eegaya heshiiska ku gala wa aqsidu wa laba kelmadood oo cadaalad macna oo garsoorka iyo cadaaladda labadaba macna tilmaamayo in loo tixgeliyo oo midna miisaan ku timaada midna cadliga labaduba wayna khuseeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna allaha ilaahay yuhibbul muqsidina ilaahay waxa uu jecel yahay oo raali ka yahay oo macna uu la macyahu la jiraan kuwa cadaaladda fala marka ay gar galayaan macna ay ka qayb galayaan ay sulxi galayaan ay heshiis galayaan ay laba qof oo islaama xitaa ay heshiisinayaan kuwa cadaaladda macna ku suga wax kuwaas ilaahay subhanahu wa ta'ala oo macna oo la jira oo raali ka yahay kalgacalkiisa yahay innamal mu'minuna ikhwatun ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay muuminiinta oo dhamiba meel kasta ha joogan ama Yurub ha joogan ama Aasiya ha joogan ama Awroba ha joogan ama Afrika ha joogan waa walaalo magaca mu'min bay ku wada walaalowna islaamka dad qofka islaamki qofka kale ee mu'minka waxa uu ka dhigan yahay macna gidaar dhisan jaajuur dhisan oo hadii xabad kamid laga dhax saaro macna waa wala tabaya ama xubin kaliya haday ku xanuunsato ad muuminka inta kalena way wada xanuunsanaysaa marka sida daraadeed inagoo aayadka ilaahay iyo diinta tixgelinayna waa inaynu arrinkaas ku guntanaa oo aynu qayb weyn ka qaadanaa hadaynu burcanahay oo aynu Togdheernahay arrinkaas heshiiska ka dhimasha ee dhibaatooyinkaas fara badan leh ee ka jira halkaas maqlaysaan buu hodliyo dhaxaysa garadag waxaan leenahay laga qayb galo si weyn oo walaaltinimo islaamnimo leh oo cadaalad ku dhisan tahay waxa ilaahay yiri muuminiinta ayuunba walaalaha
iyaga macnaha sulxiga hagaajiya oo macnaha heshiisiya dhexdooda oo ilaahayna ka baqa ilaahayna wuu idin naxariisanaya ijaabadiisii iyo qabuulkiisii iyo raxmadiisii buu ilaahay idin siinayaa aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi laa khayra fii kathiiri min najwaahum khayr fara badani kuma jiro in fara badan khayr kuma jiro in fara badan oo dadku ay ku faqaan ama ay ku arrinsadaan ama ay isugu yimaadaan ilaa man amara bisadaqatin istisnaa baa ilaahay ka soo reebay saddex arrimood haddaanay ku jirin baa ilaahay yidhi waxaa meesha lagu qabanayaa lagu faqayaa ama lagu shirayaa macnaa khayr ma laha saddexdaasi waa maxay ta ugu horaysaa ilaa man amara bisadaqatin in sadaqad lays amrayo caama oo guud oo balaayada laga ducaysanayo ama imtixaan laga ducaysanayo ama masaakiin la siinayo ama qaar macnaa baahan la siinayo ama cid kale lagu caawinayo mar haddii sadaqad lays amrayo khayr baa ku jira ee taa ha la ogaado talabaadina waa maxay aw macruufin haddii wanaag halkaa la isugu imanayo wanaag laysku farayo oo aan xumaato laysku farayna taasina macnaa way ku jirtaa diinta oo sulxiga way ku jirtaa sidaasuu kitaabkeenu qoraya rabbi tabaaraka wa tacaala ta saddexaad waa maxay aw islaaxin ama haddii aanu halkaa heshiis ku jirin laba dowladood oo isdilay oo la heshiisiinayo laba qoom oo isdilay ama laba qabiilo isdilay ama laba jaara oo isdilay ama laba muuminiin oo isdilay intaas oo dhan baa way khusaysaa aayaddu oo saasaa ilaahay subxaana wa tacaala oo inoogu macnaha baraarujinaya oo ina leeyahay macnaha ka kaca oo wanaajiya waana amar ilaahay subxaana wa tacaala macnaha ina siiyey waana rugni diinta ka mid ah ilaahay maxaa uu yidhi isagoo sii ammaanaya waman yafcal daalika sidaa qof cidda samaysa ee heshiiska iyo sulxiga wanaagsan dadka dhex dhigta ibtiqaa'a mardaatillaahi iyagoo weliba dalbaya macnay raallihaanshaha ilaahay ay kaga doonayaan arrinkaas oo aanay wax kale ku jirin fa sawfa jeer dambaanu nuutiihi siinaynaa ajran cadiiman ajri weyn oo aanay macnaha miisaami karin oo aanay dhabtoodu macnaha maqli karin oo ishoodu arag oo macnaha waxaas oo bani aadmiga looga sheekeynaya waa wax aanay haday jeer arag ibni aadamka rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam annaasu nuyaamun dadku way hurdaan fa idaa maatuu intabahuu marka ay dhintaan ay geeriyoodaan ee nafta laga qabto ayay baraarugaan waxaan leeyahay arrinkaas ha la xoojiyo oo arrinkaa ha layska saaro xil weyn anigoo ku hadlaya magaca sheekhalbeledka sheekh cusmaan nuur gaar ahaan waxaan culimmada leeyahay arrinkan aynu aada uga guntano salaadiinteenna cuqaasheenna saasaan kusoo koobaya ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaa halkaa ka qaraxday in ilaahay uu inaga damiyo fadligiisa iyo raxmadiisa ilaahay uu kaga damiyey dadka muuminiinta waxaan kusoo koobayaa waktigii nabiyullaahi muuse calayhi salaam ayaa waxaa la yidhi quraanjo yari qaniintay xabad yar oo quraanjo ah ayaa qaniintay quraanjadii iyagoo dersin dhan ah ayuu muuse gacanta sidaa u raaciyo dersin dhan baa dhintay dabeedna ilaahay wuu la hadla wuxuu ku yihi muusow xabadda quraanjee ku qaniintay maxaad u dili weedaye inta kale aan waxba geysanin aad u dishay yaa ilaahay miyaan arkayay buu ku yidhi aniga mida qaniintayna maan kala garanaynin fidnaduna sidoo kaleba ilaahay ku yidhi waxaad ogaataa fidnadana haddii qof uu macnaha fidno sameeyo dadka caam inay ku noqonaysa ha la ogaado wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu lciqaab war waxaa ka baqdaan oo ka dhowrsoonataan fidno aan ku koobnaanaynin halkaa ay ka dhacdo ama ciddii samaysay aan khaas ku noqonayna caam idinku noqonaysa ka feejignaadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi macnahu nabadgelyadeenna waa ogtihiin maanta aynu haysanno cadowgeennana waa ogtihiin waa iska fara badan yihiin yani xaawal caalam meel kastoo la joogo anigu islaamnimadan ku hadlaya diinta ku hadlaya waxaan leeyahay arrinkaas sidaa lagu soo gabagabeeyo ilaahayna arrinkaa haynala qabto wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu